senator yuusuf geelle ugaas oo loo garan ogyahay dhegay geelle ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii senatarnimo ee golaha xeerdejinta dowlad goboleedka galmudug ay u doorteen 12 bishii agoosto ee sanadkan sii dhammaanaya dhegay geelle oo 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyay kursigan mar kalena ay xildhibaanada galmudug codka kalsoonida siiyeen ayaa ka tagay booskan kadib markii uu soo saaray bayaan uu ku shaacinayo in booskan uu ka tanaasulay waxa uu madaxweynaha galmudug iyo guddoonka baarlamaanka galmudug u sheegay in kursigan la buuxiyo iyadoo la ilaalinayo saami qaybsiga beesha kursigan iskale haddaba maxay tahay asbaabaha ugu waaweyn ee keenay in dhegay geelle uu ka tago kursiga aqalka sare ee loo doortay bilooyin ka hor siyaasigan ka tirsan kooxda waaye arag ee saamaynta badan ku leh galmudug iyo dowladda dhexe ayaa sheegay in arrinta ugu weyn ee u tanaasulay ay tahay in tolkiisa uu ka dhex abuuro jawi siyaasadeed oo caafimaad qaba waxaa jira guux hoose oo ka dhex socda beesha uu senatarka ka soo jeedo kuwaas oo isku haya sida 5 kursi oo ay beeshaasi ku leedahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay u qaybsan karaan 8 jilid ay ka kooban tahay beeshani shufada hoose ee senatarka ayaa 4 sano la soo dhaafay haysata kursi golaha shacabka iyo midka aqalka sare taas oo dadka qaar ay u fasireen sadbursi dadka arrintan sida dhow ula socda ayaa ku tilmaamaya tallaabada ugaas dhegay geelle qaaday mid aan laga filinaynin siyaasiyiinta Soomaalida kuwaas oo ku caanbaxay in aysan waxba hambeyn iyo in qofku uu ka dhigto kursiga waxa uu isagu gaar u leeyahay fariinta ugu weyn ee ay dirayso iscasilaadda ugaas dhegay geelle ayaa lagu qeexi karaa in ay tahay in senatarku uu u muuqdo qof raba isku wadida dadkiisa siyaasi ka fuqi kara wixii lagula dhago iyo inuu yahay qof ku dhac leh oo qaadi kara tallaabo saxan laakiin natiijada dambe ee ka dhalan karta aysan dad badan qiyaasi karin sidoo kale tallaabada senatorku qaaday waxa ay meesha ka saaraysaa dood bulshada beeshiisa ka dhex jirtay oo ahayd in dhegay geelle uu yahay siyaasi ka shaqeeya sadbursiga reerkiisa hoose oo keliya haddaba halkee ayuu ku wajahan yahay senator dhegay geelle wararka soo baxaya ayaa sheegaya in yuusuf geelle ugaas uu u tartami doono xildhibaan golaha shacabka ah kaas oo 4 sano la soo dhaafay ay ku fadhisay xildhibaanad Ikraan Aadan Absuge hob 26 ka hor Ikraan waxa kursigan ku fadhiyay tan iyo doorashadii Imbagathi yuusuf geelle ugaas waxaana uu damacsan yahay inuu ku soo laabto aqalka hoose kursiga uu dhegay geelle u tartami rabo ayaa ka mid ah 5 kursi ee saacadaha soo aadan ay shaacin doonaan guddiga doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed si kastaba yuusuf geelle ugaas oo muddo ku dhow 20 sano ku jira siyaasadda Soomaaliya ayaa dadka yaqaan ay ku sifeeyaan siyaasi saameyn badan dad isku wadid leh nabadoon ah kana shaqeeya danaha deegaankiisa iyo midda qaranka dhegay geelle iyo mataankiisa siyaasadeed ee dhegdheer ayaa dadka siyaasadda la socda ay ku tilmaamaan kuwa ugu saameynta badan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaana hadalhayntoodu ay ku badan tahay xafiisyada dowladda ugu sarreeya inkastoo dadka qaar ay dhaliilaan howlaha ay qabtaan